Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan sameeyay muufo turki iyo hilib ari. Waxaan ka bilaabay hilibka ariga oo aan biyo ku daray. Waxaan ku daray kabsar iyo filfil iyo cusbo. Intaas ayaan daboolayaa 2 saac. Hadda waxaan bilaabayaa qasidii muufada. Waxaan ku bilaabay bur holy white ah iyo bur shiidan oo ah galleyda guduudan iyo wax yar oo burcad ah. Kadib waxaan ku daray fixiso iyo cusbo. Kadib waxaan ka dabageeyay qaado sonkor ah iyo qaado saliid saytuun ah iyo qaado caano nido ah. Haddana waxaan ku daray biyo. Kadibna waan qasayaa. Intaas ayaa isku rafaajiyay 1 saac iyo bar ayaan meel dhigay. Hadda wuu soo faxay. Cad ayaan soo goosanayaa. Kadibna waa fidinayaa. Markaan fidiyo kadib waxaan saarayaa birtii aan ovenka ku gelin lahaa. Kadibna ukun ayaan korka ka mariyay shaharkeeda. Kadibna 5 daqiiqo ayaan daboolay. Kadibna 30 daqiiqo ayaan ovenka u daayay. Hadda waxaan isku dardarayaa suugadii basal iyo barbarooni iyo yaanyo iyo kabsar caleen ayaan ka bilaabay. Kadibna waxaan ku daray maraq digaag iyo xawaashiyadii. Hadda waxaa soo baxday muufadii. Sidaas baan loo egyahay loona jilicsan yahay. Suugadayna ayaa waxaan ku darayaa baradho iyo toon. Hilibka ariga ayaa waxaan ku gurayaa saxankii ovenka. Wax yar oo maraq digaaga iyo xawaash ayaan ku daray. Kadibna baradhaan korka ka saaray. Ovenka ayaan 30 daqiiqo geliyay. Suugadii waxaan ku darayaa hilibka ariga maraqiisii. Hilibkii wuxuu ku soo baxay sidaas aad arkaysaan. Suugadina sidaas ku soo baxday. Muufadina waa sida u jeedaan. Fadlan like iyo subscribe iyo saara mahadsanidin.